Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu asxaabta kusoo dhawaada kanaalkiina Baro English with Somali. Maantayto waxaan idiin wadnaa topic ku saabsan Top 10 Trending English Words of March 2020. macnaheeduna ay tahay 10 eray ee Ingiriiska loogu isticmaalka badan yahay ama ugu cusbaa 2020 ilaa 2019 xilligii uu jiray coronavirus-ka. maantayto 10 wordska aan idiin wadno. ereyga koowaad wuxuu noqonayaa quarantine macnaheedu waxa waaye qofka in la karantiilo haddii xaalad looga shakiyo ama inuu cudur qabo ama wax kale inuu qabo, qofka in quarantine la sameeyo, ama qofka markuu deegaan kale ka yimaado oo deegaan kale uu yimaado, deegaan xanuun ka jiro ama coronavirus uu ka jiro ama any other disease uu ka jiro. marka waxa waaye quarantine waxaa la dhahaa when you have exposed to the virus. qofka markii looga shakiyo inuu cudurkii qabo ayaa qofka la geliyaa quarantine. ereyga labaad waxa waaye isolation waxa waaye qofka in gooni-goosad laga dhigo ama meel gooniya la dejiyo ama meel gooniya qofka lagu hayo oo lagu xanibo. qofka markii cudurka uu ku dhacay ama uu infected with the virus, qofka markuu when the person infected with the virus, qofka markuu cudurka saameeyay waxaa muhiim ah in lagu sameeyo waxa la dhaho isolation. ereyga saddexaad ee maantayto aan ka hadlayno waxa waaye sanitation waxa waaye waa nadiif ama nadiif. waxaa la macnaa ereyga sanitation clean ama hygiene. tusaale haddaan kasoo qaadano oo ku saabsan ereyga sanitation, tusaalihiisu waxa waaye very little was spent on sanitation roads, other public works and education. wax yar ayaa waxaa lagu qarash gareeyay nadaafadda wadooyinka, shaqooyinka guud iyo waxbarashada ayaa lagu qarash gareeyay. macnaha lacag yar ayaa lagu qarash gareeyay arrimaha nadiifinta, nadaafadda, arrimaha wadooyinka, arrimaha waxbarashada. marka sanitation waxa waaye nadiif ama arrimaha nadaafadda oo kale. ereyga afraad ee maantayto aan ka hadlayno waxa waaye lockdown. waa ogtiin intiina badan markii lagu guda jiray coronavirus-ka ereygan in aad badan loo isticmaali jiray. lockdown waxa waaye in dadkii la xanibo oo maxaan ku dhahaa dadku maaragtay aysan isku gogoshin, aysan movement samayn, ay communication maaragtay ay yareeyaan, in lockdown la geliyo magaalada. tusaale haddaan kasoo qaadano lockdown waxa waaye communication of family was high during lockdown. wada xiriirka iyo isfahanka bulshada ama familigu wuxuu ahaa mid aad u sareeya xilligii lagu guda jiray coronavirus-ka. marka ereygaas lockdown macnaheedu waxa waaye dadku in lockdown la geliyo, dadka deegaankooda lockdown la geliyo, maaragtay aysan meelna ka bixin meesha ay joogaan. ereyga ku xiga ee loo isticmaalka badan yahay xilligaas waxaa ka mid ah social distancing. macnaheedu waxa waaye dadku waa inay kala fogaadaan maadaama cudurro ay jiraan, maadaama coronavirus lagu guda jiray, dadku waa inay sameeyaan waxa la dhaho social distancing. tusaale haddaan kasoo qaadano waxa waaye everybody of us should follow social distancing rules. qof kasta oo naga mida annaka waa inuu raacaa social distancing ruleska, sharciyada ku saabsan social distancing-ka. ereyga ku xiga aan isticmaalayna maantayto waxa waaye curfew oo macnaheedu ay tahay bandow in la sameeyo. badanaa way ka dhacdaa deegaanada ama sharciyada markaas maamulka meesha ka jira. bandow marmar waa uu sameeyaa markii xaalad ay timaado amni ama xaalad kale. badanaana bandowga waxaa la sameeyaa especially night shifts ayaa la sameeyaa bandowga. tusaale haddaan kasoo qaadano ku saabsan curfew waxa waaye curfews tightened in response to raise COVID-19 cases. curfewgii ama bandowgii ayaa la adkeeyey markii uu kor u kacay COVID-19-ka, aad ayaa loo adkeeyey. ereyga ku xiga maantayto aan ka hadlayno waxa waaye rumor waxa waaye kutirikuteen. qof baa war beena kaa sheegay ama qof baa wax kale kaa sheegay, war aan waxba ka jirin. marka tusaale haddaan kasoo qaadano rumor waxa waaye it's rumor that he lives in Somalia. waxaa rumor ah qofkan inuu ku nool yahay Soomaaliya oo kutirikuteen macnaha qof baa wuxuu ku yiri qofkaas Soomaaliya ku nool yahay, qofkiina kuma noola Soomaaliya. ereyga ku xiga waxa waaye viral waxa waaye dadka inay ku wadaagaan xog ama information social media ama email si xogtaas si isla markiiba ay u faafto ayaa la viral. ereyga sagaalaad waxa waaye vaccine, waa talaal. ereygaas aad baa loo isticmaalay xilligii lagu guda jiray 2020gii oo coronavirus-ka uu jiray. marka tusaale haddaan kasoo qaadano ereyga vaccine baa ugu dhawaaqaysaa every year millions of vaccine is used to protect viruses. sanad kasta waxaa la isticmaalaa kumanaan vaccine ayaa la isticmaalaa si looga hortago viruseska. ereyga ugu dambeeya waxa waaye antidote waxa waaye waa daawo taas oo loo isticmaalo
in looga hortago qofka markay ku dhacdo sun maaragtay uu cabo kale. Daawo waxaa jira la dhaho antidote oo la isticmaalo. Asxaabta aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Maanta topigeennii ku saabsanaa top 10 trending English words of March 2020 halkan ayaan ku joojinaynaa. Fadlan haddii aad ku cusub tahay kanalkeena Baro English with Somali, subscribe noo saar.